dhismaha gadaashayda ka muuqda waa mid si weyn loo qurxiyey waxaana loo dhisay qaab ay ka muuqato farshaxanimo weyn taasi oo laga keenay cusmaaniintii xukumi jiray mardunida dhismahan oo ah maktabadda ugu casirsan Turkiga ayaa waxa uu ka kooban yahay 2 dabaq iyo hool weyn oo halkii mar ay wax ku akhrisan karaan 5,000 oo arday buugaagta taalo gudaha library-ga ayaa waxa lagu qiyaasaa 4 milyan oo buug oo ku kala qoran 134 luqadood gudaha library-ga ayaa waxa ku sugan khubaro iyo macallimiin si lacag la'aan ah u caawinaya ardayda sidaas isla mid ah maqaaxida cuntada library-gani waa mid bilaash ah halka uu ku yaalo oo ah mid isweydiin mudan ayaa ah gudaha madaxtooyada Turkiga muhiimadda dhismihiisa ayaa ah si kor loogu qaado waxbarashada dhalinyarada Turkiga madaxweyne Erdogan ayaa isagu wax shakhsiga leh qorshaha hindisahani oo guulo badan sameeyay muhiimadda ayaa ah in dalalka waaweyn ee dunidu ay kala dheereynayaan horumarinta waxbarashada muhiimadda muuqaalkeenana waxa uu yahay waxbarashadu waa furaha guusha